isugu imaatay meeshan ugu horeeyay gudoomiyaha iyo gudiga garbihiisa taagan qabanqaabayaasha munaasabada lagu xuseeyay sanad guuradii 35aad ee ka soo wareegatay aas-aaskii ONLF mudanayaal iyo marwooyin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygu waa raxmo maxamed daahir waa ardayad waxaana ka baxay jaamacadda siimad waana arday waxaana ka qarin jabiyay sanadkan kuliyadda programka tirkoobka iyo qorsheynta waxaana ka hadli doonaa insha Allah faa'iidooyinka ay leedahay waxbarashada inkastoo ay badan tahay laakiin waxaan fiirinaynaa waxyaabo yaryar ayaan ka eegi doonaa insha Allah markii laga hadlayo faa'iidooyinka waxbarashada ee leedahay waxa laga fiirin karaa waxyaan dhowr dhinac laakiin waxaan ka fiirinayaa insha Allah qofku wax bartay nafsad ahaantiisa faa'iidada u leedahay bulshada uu ku dhex nool yahay faa'iidada u leedahay ama uu ka dhashay iyo guud ahaan qaranka iyadoo saas loo soo goobay dabcan faa'iidooyinka waxbarashada ma ahan wax lagu soo koobi karo hal khudbo oo soo qayb kasta oo ka mid ah saddexdaas qaybood oo kore mid kasta waxaan ka fiirin doonaa saddex faa'iido ugu muhiimsan waxbarashada ay leedahay dhinac walba haddaan ku hormaro individual levelka ama qofka shakhsiyan faa'iidada ay waxbarashada u leedahay markii la geynayo nooca ay doonto ha ahaatee qofkan waxaa ka maqan waxyaabaha asaasiga ahaa noloshiisa qofku markuu jahli yahay qofkaasi ma garanayo waxa noloshiisa yacni maxaa sax ah maxaa qalad ah maxaa xaraam ah laakiin qofkii markuu intuu yar yahay iskuulada dhanka diinta laga soo dhiso dhankii maadiga laga soo dhiso qofkaas wuxuu noqonayaa qof si shakhsiyadiisa yani bulshadana wax u taro isagana dhisan tan xigta qofku waxay ka saacidaysaa inuu helo fursado shaqo oo wanaagsan markii dalka guud ahaan ama caalamka challenge-ga hortaagan wuxuu la soo gudboonaa dhalinyarada waxa ugu badan waa shaqo la'aanta ama unemployment-ga oo wadamada caalamka yani Soomaalidan iyo meelahan wadamadayna ku badan qofku markuu yahay qof wax bartay oo degree jaamacadeed haysta ama shahaado cilmi leh qofkaas waxay ka saacidaysaa inuu shaqo helo haddii xitaa ay suurtagal weysay inuu shaqo helo qofkaas wuxuu u fududaanaysaa inuu fikrado kala duwan uu la imaado isaga wax aas-aasto oo waxyaabo uu hirgeliyo oo fikradahaasna dad badan ay ka faa'iidaan isagana wax ugu imaado laakiin qofka hadduusan waxba garanayn wax ma keeni karo shaqo hadduu waayo faa'iidada saddexaad uu leedahay qofka education-ka ah asaga nafsad ahaantiisa waxa ay sare u qaadaysaa dakhliga soo gala qofkaasi marka qofkan uu shaqeynayo ama wuxuu helayaa shaqooyin lacag fiican uu helayaa oo income-ka soo galaya qofkaas lacag fiican uu ka helayaa qofka uuna income-kaas qofka kale wax uu dheeriyaa soo maahan oo waxba baran lacagta soo galayso marka social laga hadlaayo waxbarashadu waxay sare u qaadaa caafimaadka guud ahaaneed bulshada maqaale ay baahiyeen WHO ay waxay ku sheegeen caruurta hooyadood wax baratay inay 5 sano wax dheer yihiin caruurta aan hooyadood wax baran marka muuqaalkaas saas ay sheegaan waxbarashadu waxay sare u qaadaa nabadda haddii bulshada ay tahay bulsho wax baratay waxaa yaraanaya isqa qabsiga iyo carqaladaha taagan waxaana sare u kacaya isu samirka iyo isu tanaasulka dhanka kale UNESCO warbaahinno ay baahiyeen qoreen waxaa ka mid ah oo UN-ka ka mid ah u qaabilsan dhanka waxbarashada waxay sheegeen haddii 10% sare loo qaado waxbarashada ama ardayda iskuulada aadaysa waxa hoos u dhacaya 3% in wadankaas dagaal ka dhaco marka meeshaas waxaa kaaga cad faa'iido ay waxbarashada leedahay ugu dambeyntii bulshada marka ay tahay bulsho wax baratay waxay soo saaraysaa caruur wax baratay taas oo sare u sii dhigayso guud ahaan nolosha bulshadaasi marka la eego qaranka guud ahaan waxbarashadu waxay sare u qaadaa dakhliga soo gala dalkaasi ama waxa loo yaqaan income opportunity waxay hoos u dhigtaa faqriga qaranka 20% qofka dadkaas haday ahaadaan dad dugsiyada iskuulada ama sanadkaas wax barta waxay 0.03 hoos u dhacay waxa loo yaqaan poverty linkiga oo cabirka loogu cabiro faqriga ugu dambeyntii waxbarashadu waxay sare u qaadaa guud ahaan kobca dhaqaale ee qaranka tusaale ahaan wadankan hadda aan ku noolnahay ee Soomaaliya 2012 waxay ka ahayd wadanka lixaad ugu faqrisan caalamka maanta waxay xataa kuma jirto maanta wadamada 25aad ee ugu faqrisan caalamka taasna waxa isbedelay ma lahan sababtoo ah wadankii burburkii waa ku jira dagaaladu way socdaan nabad oo hadda oo la sii sheegay ma jirto laakiin waxa isbedel kaliya dadkii inay waxbarashadii fahmeen koobay waxbarashadii la badiyay dadkii oo dibadaha ku maqnaa ee wax bartay inay wadankii u soo laabteen dadkii oo xoogaa fikradoodii kordheen
marka dadkeena insha Allah waxa ku baraarujinaya inay waxbarashada xooga saaraan si dadkeena loo baraarujiyo oo u garab istaagna dadka wax bartay dibadaha jirana inay dalkooda u soo laabtaan ee dadkana u baraarujiyaan oo garab istaagaan dadkeena maadaama dad dhibaataysan ay yihiin oo la soo dilooday maanta aan xornimo haysan inkastoo ii sheeg maxaa xornimadii dhabta aan haysan laakiin sida waa dhaana maadaama maanta wadankeena cidna naga hor joogin aan tagi karno marka January aan baxay February soo laabtay walaa muuqaal qurux badan soo arkay inkastoo dadkeena ay dhibaataysan yihiin laakiin waxaan dad ku baraarujinayaa dadku wax bartay inay siyaasadaan dadka wadankoodan tagaan dadkan ay baraarujiyaan si dadku wax ugu qabtaan insha Allah. Assalaamu calaykum.